maxaa dhacaya haddii aan kuu sheego ciyaartoy inuu lumiye xasuustiisa ciyaartii ugu weyneed ee mustaqbalkiisa oo xitaa uu ka tagay asxaabtiisa hadallaan finaalkii koobkii adduunka 2014 oo ay sujahayeen Argentina iyo Jarmalka daqiiqadii 25aad waxaa dhaawac uu soo gaaray xiddiga Karmar isagoo dhaawacan uu ku galay karaay ciyaaryahanka lagu magacaabay Argentina shilkan isku dhaca ayaa ahaa mid aad u xun gebi ahaanba xiddigan ayaa ka tagtay xasuustii Manuel Neuer ka hadlaya ayaa dhacay waa uu yimaaday wuxuu uga codsaday Kloviskayga inuu galo gol haye isla markii waxa uu tagay kabtan Filipos wuxuu u sheegay inuu rabo inuu xirto kabtanka isagoo dhahay waxaan ahay kabtanka ciyaarta dabadeed waxa uu tagay Thomas Muller wuxuuna ku dhahay markaasi hambaliyo ku guulaysiga koobka adduunka 1974 isagoo u maleeyay Mullerka weyn xilligii ugu dambeeyay waxa uu tagay korsaraha isagoo weydiiyay ma hubalba inaan ciyaarayno finaalka koobka adduunka dabadeed 6 daqiiqo markii xasuusta ka maqnay ciyaarta ayaa laga bedelay xiddigani maadaama uu sanayn xiddig caadi ah haddaba ka waran haddii qof xasuusta ay ka tagto kulankii isagoo ciyaar